waxaa la sameeyey isku-aadka UEFA Champions League-ga kooxooyinka Arsenal iyo Barcelona oo farxadooda ay shadan tahay. dadka Arsenal iyo Barcelona isku taageero oo aniga oo kala jabigu u fadhiyaa, laakiin hal dhibaa jira. Semifinalaha waxaa durbil isku belimiyey Arsenal iyo Barcelona. maalintaas kooxdee taageeri doontaa, mideena ka tagi doontaa. laakiin kulanka indhaha lagu wada hayo waa Paris Saint-Germain Germany iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea, kuwaas oo horey kulamo soo ciyaareen oo Paris koob laga qaaday. koobka kooxda adduunka oo Paris laga qaaday, Paris oo cunaha kala jaran, iyo Chelsea oo rabta mar kale inay haddana ka reebto UEFA Champions League. kulanka kale indhaha lagu wada hayo kulanka Real Madrid iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City waa classic match. labadaas kulan ma kala dhiciyaan, labadaas kulan ma ahan kulamo kala dhac. labadaas kulan waxay noqon doonaan kulamada oo midkee daawan doontaa, midkeesa ka tagi doontaa haddii waa. laakiin waxaa saadaasha aragtida iyo bulshada iyo jaraa'idada caalamka saadaasha ay ka dhiibteen UEFA Champions League. barnaamijkeena kama marno saadaasha ay ka dhiibteen quburada sportiga ee caalamka, daafaca caalamka meel walba ay joogaan. sidoo kale kama marno wareysigii xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal kadib markay isku aadeen kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen. Declan Rice oo lagu weydiiyey abaalmarinta Ballon d'Or sanadkan inuu ku guuleysan karo iyo in kale, iyo jawaabta ajiibka uu ka bixiyey. sidoo kale xidiga Victor Gyökeres oo su'aal adag la weydiiyey laakiin si fudud uga jawaabay. barnaamijkaas iyo kuwa badan oo ku xiiso geliyo la soco barnaamijkaas iyo kuwa badan oo ku xiiso geliyo waxaan kuga hayaa qaybta faallooyinka ee fadlan ku soo biir YouTube channelkeena Ilyas Ali Abdi, ama waxaan ku dhigi doonaa commentiga koowaad. sidoo kale profileka TikTok-gana wuu saaran yahay. aad baad u mahadsantiin, isla socod wanaagsan. xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Victor Gyökeres ayaa waxaa la weydiiyey su'aal oo ahayd sanadkan ma ku guuleysan doontaa UEFA Champions League iyo sidoo kale Premier League. Victor Gyökeres oo si fudud ka jawaabay jawaab taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal soo jiigtayna uu ka bixiyey. xidiga Victor Gyökeres ayaa wuxuu ku jawaabay haddaanba aniga ahayn guuleyste ama kooxda kubadda cagta Arsenal waxa ka maqan aan u keeni karin, kooxdan ma imaan lahayn u dhah. cajiib, waa nin rageed. Victor Gyökeres wuxuu dhahay haddii Arsenal waxa ka maqan aan u keeni karin, kooxdan kuma soo biiri lahayn u dhah. sababtan u imaaday waxay tahay inaan UEFA Champions League iyo horyaalka Premier League sanadkan Emirates Stadium aan keeno, waana sababtii ugu weyneed aan kooxdan u doortay u dhah. warkan wuu cad yahay, kan ka laabasho ma lahan. warkan wuu cad yahay. Victor Gyökeres wuxuu dhahay sababtan u imaaday kooxda kubadda cagta Arsenal wax kale ma ahayn u dhah inaan kula guuleysto UEFA Champions League iyo horyaalka Premier League. weliba asigoo wareysigiisa sii wato wuxuu dhahay inaan kooxda kubadda cagta Arsenal koobab waaweyn kula guuleysto waxaa iga xigto dhah. number 1 inaan goolal badan dhaliyo oo qabyaareedkayga joogtayo. number 2 inaan guuleysto wax ka yar 15 kulan. haddii aan guuleysto 15 kulan waxaan ku guuleysan karaa dhah dhammaan tartamada aan u tartamaan. 15 kulan bis haddii aan is adkayno oo anaga guulo gaarno waxaan Emirates Stadium ugu dabaaldegi doonaa dhammaan koobabka aan u tartamayno sanadkan. warkaas wuu cad yahay, ka laabasho ma laha. wareysigii kale oo ninka la yiraahdo Chakatorka heer England iyo kooxda kubadda cagta Arsenal, ninka la yiraahdo Declan Rice ayaa jira waxaa la weydiiyey su'aal ahayd sanadkan Ballon d'Or ma ku guuleysan doontaa maadaama sanadkii hore ku dhaweed laakiin ku saamixin oo UEFA Champions League iyo Premier League labadoodaba seegtay. sanadkan ma ku guuleysan doontaa u dhah. su'aasha markii la weydiiyey Declan Rice uu qoslay, markaasuu waxaa ka jawaabay jawaabta uu ka bixiyey waxay ahayd inaan Ballon d'Or ka guuleysto ma ahan u dhahay targetkayga koowaad. targetkayga koowaad waa in kooxda kubadda cagta Arsenal koobab kula guuleystaa kadib
guulaha shakhsiyan iyaga imaanaya. warkan wuu fadhiyaa. warkan waa war fadhiyo oo kalaabasho lahayn. ninkan wuxuu dhahay inaan balandiyoor qaado ma ahaanu dhahay dadaalkayga ugu weyn ama wax aan hardanka uga jira ma ahan inaan balandiyoor ku guuleysto. laakiin tartanka waxa ugu jira inaan kooxdeedu kula guuleysto koobabka waaweyn ee muxalliga ay u tartamayso kooxda kubadda cagta Arsenal. waana sababta halkan u imaaday oo har ay haween aan u dagaalamo inaan kula guuleysto kooxda kubadda cagta Arsenal koobabka waaweyn ay u tartamayso inaan kula guuleysto kadib abaalmarinta shakhsiga iyada iska imaanaysa. waa runde haddii aad Premier League iyo Champions League ku guuleysatay kadib aad u tartami doontaa UEFA Ballon d'Or jaayizada Ballon d'Or. laakiin adoon kooxoodaada wax guulo la gaarin oo Premier League ku guuleysan UEFA Champions League ku guuleysan jaayizo Ballon d'Or uma tartami karta sida caadiga ah. hadda kale raasna mid daas uu ogyahay wuuna ka dhirigsan yahay. jawaabtu ku bixeen waxay ahayd ugu horeen waa inaan kooxdeeda la gaaraa guulo waaweyn oo kula guuleysto dhammaan koobabka ay u tartamayso kadib abaalmarinta shakhsiga iyada iska imaan doonto. cajiib. raggan waa rag soo tashtay sanadkan dagaal ay u yihiin Emirates iga qora 3 ilaa 4 koob sanadkan waa la keenaa. Champions League ku jira, Premier League ku jira, Arsenal horse final saanay ku joogtaa. final toosay joogtaa. saadaasha caalamka oo idil waxay leedahay kan waa kii Arsenal, Champions League waa kii Arsenal. kadib isku-aadka la sameeyay aana ku qeexay kan inuu kii Arsenal yahay. waxaa isku dhacay Paris iyo kooxda kubadda cagta Chelsea. labadooda laba dhagax haday isku dhacaan mid unbaa jawaab. labadooda mid haray waa must. Paris ama Chelsea meeshaas ay ku hareen. jaraa'idada caalamkana waxay leeyihiin meeshaas Paris ka soo bixis. sidoo kale Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Manchester City. jaraa'idada caalamku waxay leeyihiin Manchester City ay soo bixi doon. finalahana waxa isku imaan doonaa la Manchester City iyo Arsenal. markii ugu horeysay labadooda finalaha isugu imaan doonaan. Champions League waxay noqon doontaa la dhahay kooxda kubadda cagta Arsenal. saadaasha caalamku waa. laakiin aniga waxaa qaba Real Madrid iyo Manchester City inay soo bixi doonto Real Madrid. Paris iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay baaqaysa Santiago Germany soo bixi doon. Liverpool sidoo kale waa Arsenal oo kale waa loo raaxay tartiibkeeda ay u raaxaysanay. wax culeys ma saarno. laakiin ay jirta markay Liverpool markay meesha ku soo baxdo waxa sugo shub halka Arsenal 90% ay raaxa kala ku soo bixi karta kaliya 10% ka soo hartayna ee loo saadalinayo inay u soo bixi doonto kooxda kubadda cagta Barcelona. hadda waa sama finalaha meeshan ka hadlay. kadib Arsenal final saasay ku joogtaa. marka saaxiibadeeda qiimaha iyo qaayaha badan adigana fikirkaada waana la marka sanadkan kan waa sanadkii Arsenal. dad badan waxay isleeyihiin Arsenal Premier League haday meelaha imaado way ku fijirtay way ku fay sanadkan laakiin waxaas waa qiyaali. sanadkan Arsenal laba number ka maqneed. labada number ka maqneed waxay ahayd number 1 waxay ahayd Bukayo Saka bedelkiisa. noona mudbuuki ay neesh. numberka labaad oo Arsenal ka maqnaa wuxuu ahaa Victor Gyökeres. striker toos ah oo kulan kasta available ah. weer daafacyada kooxda naga soo horjeedana pressure gareynaa. goolna dhalin kara. Victor Gyökeres qofkii dhaliila iyo qofka kale saxiixiyada Premier League sanadkan imaadeen waa kan ugu fiican. waa ninka ugu goolasho badan, waa ninka ugu cadaadiska badan, waa ninka ugu tayada wanaagsan, waa weeraryahankii ugu fiicnaa ee Arsenal soo qaadatay. tan iyo Alexis Sanchez xidig aan isdhici karo waa weeraryahan tayadiisa sareyso oo ay kooxda kubadda cagta Arsenal keen waa Victor Gyökeres. ninkii ka shakisan asay u taala. Victor Gyökeres isagana warkiisu uu cadeeyay sanadkan Gunners-ka Premier League way xananay. kan Premier League iyo Champions League waa Arsenal sanadkan. marka saaxiibadeeda qiimaha iyo qaayaha badan aad baad u mahadsan tahay haddii aad halkan la soo gaartay. mar labaad waxaan ku leeyahay mahadsanid la soco barnaamijkeena xiga iyo saadaashaadana qaybta commentiga nooga reeb. anigana waxay noo noqon doontaa waxaan soo qaadan doonaa saadaashaada haddii ay isbixiyaan kulamada UEFA Champions League iyo Premier League isbuucan dhammaan say ku dhammaan doonaan. saadaashaada commentiga nooga reeb haddii ay noqoto guuleysta anaga